Okay, bismillah. Waxaan ku jirnay chapterka nervous systemka habdhiska dareenwadka waxaan soo qaadanay 1.1 oo aan kaga soo hadalnay structure-ka iyo qaab dhismeedka nervous systemka neuronska iyo 1.2 aan kaga soo hadalnay typeska aad waxaan jirnay 1.3 waxaan qaadanaynaa nerve impulse. Very important. Nerve impulse maxaa la yiraahdaa? A nerve impulse is an electrical charge. Waa danab koronteed weeyaan, electrical charge. You know, charges waa positive iyo negative. Nervaha ama neuronka waxa uu sido oo uu geynayo maskaxda oo maskaxduna ay taqaano waa koronto waaye, waa plus iyo minus waaye. Waxa nervaha uu sido nerve impulse yana la yiraahdaa. Marka, a nerve impulse is an electrical charge traveling the length of a neuron. Waa danab koronteed oo ku dhex socda, ku dhex safraya neuronka lengthkiisa ama dhirirkiisa. Neuronka dhex maraya gebi ahaanba. Impulsigana oo nervahaas oo ku dhex soconaya plus iyo minuska ah results from wuxuu ka dhashaa a stimulus, dareen-geliye. Stimulus or signal maskaxda looma dirayo ama akhbaar ama impulse looma dirayo unless uu yimaado stimuli waa jamici stimulus in la helo oo waxa weeyaan wax oo dareen geliya oo kiciya qulqulka abuura just like maxaa la yiraahdaa haddii maaragtay ishaan waxa ay arkayso oo dhan iyo waxaas oo dhan waxa weeyaan hortaada yaalla waa stimulus impulse ay abuurayaan waxyaabaha maaragtay ku taabanayo oo dhan stimulus waaye. Stimulus waxaa la yiraahdaa anything that causes you to react, wax walba oo kugu kalifa inaad jawaab bixiso stimulus ayaa la yiraahdaa. Marka stimuluskaas gudahana way ka jiraan oo shaqada jirka socotaba dareen-geliye iyo response, stimuli iyo response maanta dhan waa waxa shaqada abuuraya waaye oo there is always stimuli and response oo mar walba waxaa jira just like action and reaction stimuli iyo response yaa mar walba jira. Marka impulsiga results from wuxuu ka dhalanayaa stimulus dareen-geliyaha kicinaya such as maxaa ka mid ah touch, taabasho lagu taabtay oo kale touch. qofku waa la taabtay skinka maxaa ku jira sensory neurons ku jira receptors ku jira dareemayaal ku jira neurons ku jira neuronskaas marka waxay qaadayaan sidaas waxa ku abuurmaya the charge danabkii ku abuurmaya plus iyo minus kii markaas maskaxda loo qaada way. Marka an impulse results from wuxuu ka dhashaa a stimulus dareen-geliye such as sida a touch taabasho or a loud bang ama qaylo kore. Wow, معناها just like an explosion or buufina qarxay ama qaraxa dhacay ama qof kugu qayliyay that's a loud bang. Maxay keenay taas? Waxa soo dhan waa stimulus dareen-geliye waa. Ma taagnaanaysa haddii wax dhacaan maya waa naxaysa. Marka that's marka dareen-geliyaha waa sidaas oo kaleeto that causes you to jump. Maxay keenay qayladaas inaad boodo ayay keenaysaa. It causes you waxay kugu kalifaysaa to jump inaad boodo. Marka stimuluska waa kaasa. Marka nerve impulse maxaa la yiraahdaa? Waa nervaha waxa ku dhex socda ayaa waxaa la yiraahdaa nerve impulse. Waxaasna waa ugu wax kale ma aha waa koronto, waa electrical charge, waa plus iyo minus traveling along the length of a neuron. Marka nerve impulse waa isla fahnay. Waxaan rabnaa marka inaan fiirino resting potential waxa la yiraahdaa. Resting potential horta markaan qeexno waxaan leenahay a non-conducting nerve fiber, nerve aan waxba gudbinaynin oo wax nerve impulse uusan dhex maraynin oo aan la dareen gelin oo aan la kicin oo shaqaynayn wuxuu ku jiraa xaalad loo yaqaano is described to be waxaa lagu qeexaa in a resting potential inuu ku jiro xaalad la yiraahdo xaalad nagaansho ah resting potential inuu ku jiro. Markaas waxaan leenahay nervaha that cell unugaas oo resting potential ku jira electrically wuxuu wataa charges oo positive ayuu wuxuu ku wataa banaanka halka negative chargesna uu ku wato gudaha uu ku wato.
sidaas ayuu u eg yahay markuu nervaha ku jiro resting potential oo chargeskaas danabyadiisu banaanka waa positive gudahana waa negative markuu nervuhu ku jiro resting potential markuu ku jiro oo waxaan leenahay nerve fiber nervaha at a resting potential oo xaaladda nagaanshaha ku jira as relatively more anions waxaa kaloo waxyaabaha muhiimka marka waxaan abuuraya chargeskan laftirkooda abuuraya waxaa ogaataa ayana ayuu leeyahay unugyada ay leeyihiin waa ogtahay ions ionku waxa waaye it's an atom with an electric charge an atom with electric charge atomku markuu leeyahay electric charge maxaa la yihahdaa ion la yihahdaa electric charge kaas wuxuu noqon karaa positive iyo negative tusaale ahaan iono tiro badan ayaa unuga ku jira oo gudihiisa iyo banaankiisaba just like sodium calcium chlorides waxaa ku jira potassium iono tiro badan ayaa ku jira unuga gudihiisa iyo banaankiisa marka waxay dhahaan nervuhu markuu resting potential ku jiro potential differencekiisa waa la cabiri karaa waxay dhahaan about minus 70 millivolts waaye about minus 70 millivolts oo negative-ka ayaa aad wuxuu ugu badan yahay guduhu ku badan yahay marka loo fiiriyo banaanka sidoo kale sodium iyo potassium ayaa ah labada ion oo aadka muhiimka u ah oo ka qayb qaadanaysa resting potential iyo cagsigiisa oo ah action potential inay labadaba jiraan marka sodiumta waxaa la leeyahay waxay ku badan tahay banaanka markaan resting potential uu ku jira nervaha oo waxay ku yar tahay gudahay ku yar tahay marka sodiumta had iyo jeer waxay rabtaa inay gudaha gashay rabtaa oo ay gudaha aado unuga laakiin waa laga soo celinayaa waxaa ka soo celinaya sodium bomb ayaa ka soo celinaya sodium bomb uma ogolaanaya sodiumta inay gudaha gasho laakiin markii oo impulse uu yimaado oo nerve impulse uu yimaado xaaladda sidaan ma ahaanayso way isbedelaysaa nerve wuxuu galayaa action potential oo markaas waxaa la leeyahay sidaan ayay xaaladdu isku bedelaysaa negative-kii ayaa wuxuu aadayaa banaanka sodium tiro badan ayaa gudaha soo gelaysa gudahana waxay noqonaysaa positive banaanka unugana wuxuu noqonayaa negatively charged the inside becomes positive and the outside becomes negative and there will be more sodium ions oo gudaha soo gelaysa this sodium bomb markaas marka oo action potentialka nerve impulse uu yimaado action potentialna la galo sodiumka bombkii mechanismkii ama energy-ga celinaya banaanka u saaraya it temporarily cease uu istaagayaa marka waxaa furmaya sodium leaky sodium channels channel la yiraahdo oo sodiumta ay ka soo harooto ayaa furmaya oo laga xiray sodiumta oo sodiumta mar walba it has a tendency of going into inside marka there will be an influx of sodium a large influx qulqul badan oo sodium ayaa jiri doona oo gudaha soo galaya ayana sodium gudaha soo gali doona kuwaas oo gudaha ka dhigi doona slightly more positive marka markaana waxaa la yiraahdaa potential difference-ka waxa weeyaan about 30 millivolts waa about 30 millivolts oo positive ah gudaha markaan positive 30 waaye haddana wuxuu ahay negative 70 about negative 70 millivolts hadana wuxuu noqonayaa waa markuu ku jiro resting potential markuu ku jiro 30 millivolts oo noqonaya marka xaaladdu ay sidaan tahay waxaan leenahay marka horta uu sidaan yahay oo banaanku uu positive yahay guduhuna uu negative yahay waxaan leenahay waa polarized erayadaasna waa la isticmaalaa oo polarized waxa waaye waa markuu resting potential nerve ku jiro waa polarized xaaladdan uu ku jiro sidoo kale markuu nerve ku jiro action potential oo negative uu banaanka noqdana waxaa dhacayaan leenahay depolarization waa maxay depolarization waxa waaye in nerviya la dareen geliyay ayonadii markuu isbedelayaan sodiumtii banaanka lagu celinayay gudahay soo galaysa gudahay ku badanaysaa maqlaysaa marka waxaa dhacaysa in sodiumta gudaha ay ku badato taana waxay abuuraysaa action potential ay abuuri doontaa depolarization waa markii xaaladda noocaan tahay this depolarization ayaa waxaa marka uu yahay waa nerve impulse marka waa waves of depolarization wave of depolarization
oo maxaa dhacaya for example markuu oo sidaan oo kale uu ahaay nerve fiber markuu sidaan oo kale yahay resting potential kiisa waa maxay waa plus minus minus plus plus action potential markuu galo oo depolarized noqdo sidoo noqonaya there will be negative outside positive inside negative outside sidaas ay xaaladdu ku soconaysaa oo midka ku xiga wuxuu waaye waa positive outside negative inside haddana markuu kan soo gaaro oo action potential kan uu soconaya ama depolarization kan waxaa dhici doonta in kan asna la sii oo isbedelo oo negative ka midkan marka oo halkan markii ay halkan uu gaaro after a split of a second markuu impulse-ga halkan hadda marayay banaanka waa negative gudana waa positive soma markuu kan kale dhinacan kale oo gaaro kan sidiisii hore ku soo laabana oo waxa la yiraahdaa polarized way markaan waa depolarized laakiin depolarized ma sii ahaanayo ilaa impulse intuu marayo kaliya depolarized noqdaan nerve fiber-ka hadhow markuu wuxuu ku soo laabanaa sidiisii hore marka eraygaasna waxaa la yiraahdaa repolarization loo yaqaanaa iyadana repolarization nerve wuxuu noqdaan leenahay repolarized oo noqdaan leenahay marka polarized waa markuu sidan u eg yahay plus banaanka ah minus gudaha ah depolarizedna waa markii ionada minuska ay banaan ku badan yihiin kuwa pluskana ay gudaha ku badan yihiin marka electrically koronto ahaan nervaha markuu resting potential ku jiro sidan uu eg yahay chemically waxaan leenahay sodium ayaa banaanka ku badan oo gudaha ku yartaa leenahay haye markuu resting action potential ku jirana taa cagsi leenahay waxaan leenahay electrically waa sidaan oo negative banaanka yahay positive na guduhu ka yahay sodium tana markaan gudaha ku badan sodium ions okay marka erayadaasna ayaa fahantaan jeclahay polarized maxaa ku xiga depolarized sidiisii hore wadana ku laabanaa repolarized waxa waaye polarized inuu noqdo mar labaad uu ku noqdo oo marka nervaha uu marka oo xaaladdu ay caadi tahay uusan wax impulse u gudbinayn electrically waxa waaye positive outside negative inside waaye and there are more sodium ions outside in comparison with inside of axoplasm of the nerve fiber. Marka halkan fiiri marka a nerve fiber at a resting potential nerve fiber markuu resting potential ku jiro has relatively more ions wuxuu wataa negative ions ka leeyahay wax kale ma aha wax waaye waa negatively charged ions sida chloride kan iyo chloride kan oo kale negatively charged ions within the axoplasm macnaha minus ayaa wuxuu ku badan yahay gudaha axoplasmna waxaa laga wadaa waa cytoplasm ta axonka oo maanta waxa aan ka sheekeynayno oo maxaa la yiraahdaa korontadan iyo ionadan ba ay ku kala badan yihiin ogow waa axonka waa nerve this is the nerve so axon ma lahayn axonkaas ayaa way waxaan ka sheekeynayno cytoplasm uu leeyahay cytoplasmtiisa waxaa la yiraahdaa axoplasm fluid ayaa ku jira gudihiisa that's why the axoplasm fluid kaas extracellular fluid iyo intracellular fluid ka waxaa la yiraahdaa axoplasm of the axon marka mar walba xaaladiisa markuu resting potential ku jiro waa plus plus minus minus banaanka waa plus gudahana waa minus nerve fiber marka minus xagu ku badan yahay fiirad xagaa minus markuu resting potential ku jiro axoplasm ta gudaheeda miyaa minus ama axoplasm ta banaankeeda minus axoplasm wax kale ma aha waa the cytoplasm of the axon waa axon cytoplasm tiisa waxa la yiraahdaa axoplasm marka more ions within the axoplasm waxaa ku badan kuwa negative ka ah then marka loo fiiriyo outside of it banaankiisa and the cat ions kuwa oo positive ka ahna ionada positive ka ahna are relatively more waxay ku badan yihiin marka loo fiiriyo iyagana concentrate waxay ku yihiin ay ku badan yihiin on the outside banaanka balaska of the axoplasmka banaankeeda markuu nervaha resting potential ku jiro sidoo kale during resting potential sodium ionska maxaa ku dhacaya are actively awood ayaa lagu saaraa ayagu erayna gudaha soo galaan laakiin active eraygaas mar wuxuu faa'iideeyaa
active transport يا تقانا physiological process of the cell marka barnaysa osmosis iyo diffusion iyo active qaabka marka actively energy la isticmaalaa waa iyadoo si xoog ah looga saaraa pump it out banaanka loo saaraa by a mechanism haba u saaraya ama force u saaraya waxa loo yaqaanaa energy gas sodium bomb aliya sodium bomb uma ogolaanayo sodium tani gudaha soo gasho laakiin markii action potential ama nervaha la dareengeliyo oo impulse uu abuurmo oo action potential la galo localized change way action potential markaas waxa waaye sodium tu wax badan soo galay gudaha way soo xaroonaysaa bamkan markaas ma jiraayo it ceases uu istaagaya markaas sodium ta markaa waa furme channelski ay ka soo xaroon lahayd oo laga xiray ayaa loo furi doonaa marka xaaladda si ay isku bedesho action potential waa maxay an action potential is a localized change waa isbedelka dhexdhacaya gudaha oo waa kaas aan u jeedaay wax maanta aan ka sheekeynayno waa de nervaha gudihiisa weeyaan oo waxa weeyaan axonka weeyaan change-ga dhacaya marka maxaa waaye awal sidee ahayd xaaladdu plus minus haddana minus plus oo banaanka plus oo ahay gudahana minus xaaladii isbedelaysa marka localized change ya dhacaya oo chargeskiina way kala wareegayaan ayonadiina waa kala wareegayaan ayonada kala wareegaya waxay sameeyaan in chargeskuna isbedelaan ilaa chargeska ayagaa watee pluska iyo minuska ayagaa wata marka wuxuu leeyahay action potential is a localized change waa isbedel ka dhex dhacaya in a resting potential membrane xubka resting potentialka ku sugan axonka xubkiisaan oo markiisii hore resting potential ku sugnaay change-ga ku dhacaya waxa la yiraahdaa action potential oo ah in minus minus plus plus xaaladii isku bedesho negative outside positive inside xaaladii isku bedesho that change waxa la yiraahdaa reaction potential between wuxuuna ka dhacaa changes the inside gudaha and the outside ee banaanka of the nerve fiber ka gudihiisa iyo banaankiisa ka dhacaya caused by waxaana sababaya a stimulus oo mar walba si action potential loo helo waa in la helaa stimulus maxay ahayd just like haddii waxaan dhahnay such as a touch taabasho waa inay timaadaa taabashadaas ayaa bedelaysa marka wixii oo dhan ayada bedelaysa action potentialka ayada abuuraysa marka of the nerve fiber caused by waxaa sababaya a stimulus dareengeliye the minimum stimulus marka u fiirso shaqada action potentialka waxaa la dhahaa all or none activity wa this is maxaa la yidhahdaa all or none alia all or none it's all or none ama waa jira ama ma jiro waa weak iyo waa ma jirto waxa it's all or none activity marka maxaa waaye minimum stimulus ka dareengeliyaha ugu yar to cause oo sababi kara an action potential to be produced in la soo saaro oo xaaladdu ay noocan isku bedesho waxaa loo yaqaanaa threshold waa minimum stimulus midka ugu yar ee wax bedeli kara marka intaa marka waxaan uga baxaynaa nerve impulse muxuu yahay nerve impulse waa electrical charge ka ku dhex socda neuronka markuu nerve resting potential ku jiro uusan dareengelyana uusan jirin oo aan la kicin neuronka aanan muxuu ahay marka waxa way xaaladiisu waa sidaan oo positive ions are more on the outside than in the inside oo chargeskuna waa sidaan koronto ahaanna waa sidaan ionadiisina waa sidaas markii action potential uu yimaadana minuska ayaa banaan ku badanaya pluskana gudaha wuxuu noqon doonaa depolarized ayuu noqon doonaa depolarized waa marka xaaladdu sidaan tahay polarizedna waa markay sidaan tahay markii sideedii hore ay ku soo laabatana repolarized marka nerve impulse wax kale maaha waa wave of depolarization sheekada waa inay sidaan ku socotaa oo haddii mid kale oo inta jiray kan kaloo halkan yaala the other one here hadduu uu yahay plus minus hadduu yahay markii oo loo yimaado sidan ma sii ahaanayo wave-ku uu soconaa depolarizationka wuxuu isku bedeli doonaa negative positive oo isbedeli doonaa mar walba negative banaanka uu jiro positive-na uu gudaha jiro that's why action potential waaye marka resting potential waa markuu nerve waxba gudbinayay electricalina sidaan uu waaye xaaladiisu non conducting nerve fiber nerve aan qulqul wadin wax shaqa that's waxa waaye waa resting potential markuu uu laakiin impulse yimaado oo depolarization dhacaya ionadina waa isbedelayaan chargeskina waa isbedelayaan oo banaanka markaan minus noqonayo that's action potential leedahay marka xaaladda ay resting potential tahayna sodium maxaa banaan ku badiyay gudaha maxaa u diiday gudaha ma loo ogolo yaa u diiday sodium bomb wadaadkaas meesha taagan wuxuu leeyahay ma soo gali kartid saa darteed sodium ta banaanka ay ku badan tahay marka
marka xaaladdu waa sidaas midda kale potential difference waa minus 70 millivolts waa at resting potential and about plus 8 millivolts at action potential nerve impulse intaasaan uga baxaynaa isagana insha allah